ururka midowga Afrika ayaa ugu baaqay wadamada Djibouti iyo Eritrea inay isxakameeyaan kadib markii Djibouti ay ku eedeysay wadanka ay dariska yihiin inay qabsadeen dhulka lagu muransan yahay ee xuduudda ku dhararan waxaana taasi ay ka dambeysay markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamadii nabad ilaalinta ee ka socday wadanka Qatar. wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in ciidamada Eritrea ay qabsadeen jasiiradda iyo buuraleyda Dumeera waxaana uu sheegay in ciidamada wadankiisa la geliyay heegan sare. dawladda wadanka Eritrea ayaa ka hadal arintani. ciidamada nabad ilaalinta ee wadanka Qatar ayaa hore loogu daadgureeyay halkaasi. xukuumadda Dooxa ayaa ku dhawaaqday 14 bishani Juun inay la baxday ciidamadeeda kadib markii dalka ku yaala bariga Afrika uu la saftay wadanka Saudi Arabia oo ismaandhaaf u dhaxeeyo dalka Qatar. warmurtiyadu uu soo saaray gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa waxa uu ku codsaday isdajin isagoo sheegay in ururka midowga Afrika uu wada tashiye la leeyahay wadamada Djibouti iyo Eritrea sidii halkaasi loo geyn lahaa koox xaqiiqo raadina. golaha ammaanka ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ayaa lagu wadaa in maalinta Isniinta ay ka yeeshaan kulan ay albaabadu u xidhan yihiin. arrintani sida ay sheegeen diblomaasiyiintu labada wadan ayaa waxa dhex maray isku dhacyo military bishii Juun ee sanadkii 2008 markii Djibouti ay ku eedeysay xukuumadda Asmara in ciidamadeedu ay ka soo gudbeen xuduudda. taasina waxay kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal ka dhaca gobolka. dagaal dhacay ayaa waxa ku dhintay askar ka tirsan wadanka Djibouti halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Eritrea waxay beenisay inay qaaday wax dagaal ah laakiinse waxay ku eedeysay wadanka Djibouti in weerar uu ku soo qaaday